wasiirka horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye iyo wafdi uu hogaaminayo ay kamid yihiin agaasimaha waaxda maareynta biyo fidinta ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Cabdikariin Maxamed Ducale ayaa gaaray degmada Carabsiyo ee gobolka Gabiley waxa halkaasi ku soo dhaweeyay maayirka degmada Carabsiyo iyo maamulka biyaha ee gobolka Gabiley wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Mudane Maxamed Muuse Diiriye ayaa soo kormeeray xarumaha ceelasha biyaha Carabsiyo iyo qaybaha kala duwan ee ka kooban dhanka kalena wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa soo indheeyay beeralayda Carabsiyo kuwaasi oo ka faa'iideysta ceelasha biyaha ee ku yaala degmada Carabsiyo waxa ka muuqatay beeralayda Carabsiyo qaar ka faa'iideysta dhinaca wax soo saarka dalka waxaana beerahaasi ku yaala dalagyo kala duwan oo qaarkood bisay lahaayeen halka kuwa kalena ay ku dhawaayeen inta kadibna waxa la keenaa suuqyada waaweyn ee dalka waxaana kamid ah dalagyada kala duwan ee ka soo gaay xabuubta canabka liin macaanta kaabashka basasha iyo qaar kale badan beerahan waxa ku tabcay qaar kamid ah muwaadiniinta reer Soomaaliland oo ka yimid wadamada dibadda iyo dalka gudihiisa kuwaasi oo tacab galiyay sidii dalka Soomaaliland wax soo saar ay uga sameyn lahaayeen waxa halkaasi ka hadlay maareeyaha guud ee wakaaladaha Gabiley Mudane Maxamuud Xuseen Nuur iyo maamulaha wakaalada biyaha Carabsiyo Mudane Cumar Muuse Caalin waxa aanay wasiirka warbixin ka siiyeen xaaladda biyaha ee degmada Carabsiyo ceel kale oo hadda wali aan qalabkii la saarin laakiin qodan oo la dhameystiray oo hay'ad samafalhi ay qoday ceelka waxa inooga dhiman qalabkii in la saaro qasabad waxba uma jiraan wala xiriirin kara laakiin qalabkii ijiinkii iyo qalabkii kala ka dhiman deeta waxa loo baahan yahay in qalabka loo helo ceelka biyihiisu aad bay u wanaagsan yihiin wali waa biyo macaan waanu ka dheer yahay wuu ka production badan yahay biyo fiican baan halka filayna haddii ceelka la dhameystiro qalabka u baahan yahay la helo magaalada Carabsiyo uu ka faynaya culays badanna waa laga furan waa bamyaro koobano 7.5 qiyaasta lagu qiyaaso bamka biyaha soo saara weeyaan waa bamka ugu yar ee lagu adeegsan karo wax beer uun ku filnaada kaasi baa dibadna masaafada 6 kiiloomitir horta u qaada magaalada gabigiisba ceel kalena ma laha magaaladu iyadoon ceelka kala lahayn baan anagu shaqada bilownay masaafada marka kor u qaato ayaa haddana dib u noqonaysaa ay weecinaysaa taangigii bay saaraysaa marka tu weyn oo foora ku xidhan awoodda horta ceelka meesha muuqata ama taala waa sida gudoomiyaha degmada Carabsiyo Xamse Xaaji Xuseen wasiir degmadu waxay lahayd hal ceel oo waxa weeye ay degmadu ka cabto runtii ceel labaad baanu in badan raadinaynay inaanu helno maalin dhaweed baa ceelkii aanu helnay oo qolahayada aanu ka helno Islaamiya ceelkan hadda magaalada u qodanno waa ceel aad uga fog oo estimate ahaan 6 kilomitir buu jiraa degmada biyaha uu soo garaacayaana runtii way badan yihiin shidaal aad u badan oo ku baxa marka runtii wakaalada biyaha ee degmadu aad bay runtii ula kadeedan yihiin laakiin wasaaraddu garab badan bay ka siisaa way la shaqeysaa wax badan bay runtii kala qabtaan wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa dhinaciisa halkaasi ka hadlay runtii waa dhageysanay warbixintii isu duwaya maamulaha Carabsiyoodba biyaha waxaanu yeeli doonaa kaana waa sii maraynaa imika waanaanu soo aragnay sidii aynu bal hawshaa xal ugu heli lahayn kaana ugu heli lahayn muxuu ahaa sidii biyaha u soo saari lahay qalabkii lagu soo saari lahay lagu xidhiidhin lahaa iyo solartii ama injiinkii wixii iyo bamkii iyo wixii la xidhiidhayay sidii loogu heli lahaa haddii la sida ugu dhaqsaa badan ayaanu uga go'aan gaari doonaa hawshaas waxaa noo taalla waa arkaynaa muxuu ahaa baahida iyo warbixinta meesha taalla ee labada dhinacba ah dadweynihii reer Carabsiyood iyo dadkii beerta lahaa kormeerkan wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ku tagay ceelasha ku yaala magaalada Carabsiyo ayaa waxa ugu kurgalayaa habka iyo harnaanka ay u shaqeeyaan waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qulle iyo sawirqaadi Cabdi Cumar Jibriil telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Carabsiyo